Asalaamu calaykum waraxmatullah. Maanta waxaan ka hadli doonaa waddanka Malaysia ama macluumaad ku saabsan waddanka Malaysia. Sida caadigeed aan ku bilowno macluumaad guud oo ku saabsan waddanka Malaysia. Malaysia waa waddan ku yaala koonfur bari ee qaaradda Aasiya. Malaysia waxay xuduud la leedahay wadamada kale ah Philippines, Thailand, Brunei, Singapore iyo Indonesia. Malaysia dadka ku nool waxay gaarayaan ilaa 282 milyan oo qof. Malaysia waxaa dego 3 qowmiyadood oo kala ah Malaya oo ah dadka u dhashay waddanka, Hindi iyo Shiinees. Caasimadda waddanka waa Kuala Lumpur. Waddanka Malaysia waxa uu leeyahay ama uu soo yeeshay magacyo tiro badan inta aan loo bixin magacan haddaytan ee Malaysia. Markiisii hore waxaa la dhihi jiray Jasiiradda Malaysia. Haddana waxaa loo bedelay waddanka Malaya. 1946 markuu waddanka midoobay waxaa loo bixiyay Midowga Maleeshiyaadka. Kadibna waxaa loo bedelay Federaalka Malaya. 1957 markay xornimada qaateen waxay la midoobeen waddanka Singapore. Isla markaasna waxaa loo bixiyay magaca haddaytan loo yaqaan oo ah Malaysia. Bedka guud ee Malaysia waa 330,803 kiiloomitir oo square ah. Waana waddanka 66aad ee ugu bedka weyn caalamka oo dhan. Luqadda looga hadlo waa Malaya. Lacagta laga isticmaalo Malaysia xilligan waa Ringgit Malaysia oo loo soo gaabiyo RM. Xilligan Malaysia waxaa ra'iisul wasaare ka ah nin lagu magacaabo Najib Razak. 17% dhulka Malaysia waa kaymo ama waa meel oo duur ah. Taariikh ahaan Malaysia waxay leedahay taariikh aad u dheer. Waxay jiri jirtay in ka badan 40,000 oo sano ka hor. Waxaa waddanka soo gumaystay gumaystihii Ingiriiska laga soo bilaabo sanadkii 1786 ilaa 1963. Ingiriiska waxa uu maamuli jiray ama uu gumaysan jiray qowmiyadda Islaamka ee loo yaqaano Malaya. Macluumaadka kooban oo ku saabsan waddanka Malaysia. Malaysia waa waddanka kaliya ee ka adkaaday gumaystihii haystay ee Ingiriiska ahaa. Hoteelka ugu weyn caalamka xilligan waxa uu ku yaalaa waddanka Malaysia. Waxa uu leeyahay 7,351 qol ayuuna ka kooban yahay. Malaysia marka uu cunug reer u dhasho waxaa loo bixiyay magac ku meel gaar ah. Yacni cunugu markii hadda la dhalo magac hore loogama bixinayo. Waalidka waxaa la siinayaa jaanis ay ku soo fikiraan. Dan markay jaaniska ay keenaan oo ay magac fiican u bixiyaan, magacii hore ku meel gaarka waa laga bedelayaa. Waa arrin la yaab leh. Bayloodka ugu da'yar caalamka xilligan waa Malaysian. Waxa uu jiraa kaliya 21 sano. Malaysia waxay ku yaalo saro loo yaqaano Twin Towers ama saro mataana ah. Shakhsiyaad caan ah. Marba haddii aad Malaysia ka hadlayso waxaa la muraana inaad ka hadasho Mahathir Mohamad oo ah ninkii Malaysia dhooqada ka saaray heer sarena gaarsiiyay. Waxa uuna waddanka ka soo noqday ra'iisul wasaare. Dhanka waxbarashada. Yacni Soomaalideena dhalinyaradeen waxay u badan yihiin waxay jecel yihiin inay waddan kale wax ku soo bartaan. Marka waxaa muhiim ah Malaysia waxay ka mid tahay wadamada badan ee Soomaalida ay aado. Rag badan oo aniga aan aqaan xataa soo wax ku barto. Marka dhanka waxbarashada haddii loo jeesto Malaysia waxay leedahay waxbarasho tayo leh iyo jaamacado aqoonsi guud ah wata mas aqoonsi caalami ah. Yacni marka jaamacad wax ka baranayso waxyaabaha ugu muhiimsan laga qiimeeyo waxay tahay in jaamacadan la aqoonsan yahay. Yacni markaad shahaado ka qaadato ay tahay jaamacad magac leh. Sidoo kale markii aad waddan aadaysid waxaa la muraan ay raqiisnimada nolosha. Yacni waddanka markaad ku noolaanaysid cunooyinkiisa waxyaabaha la midka ah. oo marka Malaysia waa waddan dhankaasna raqiiska yacni. Sidoo kale Malaysia waxay leedahay fursado shaqo oo part time ardayda gelinka hore inay shaqeystaan, gelinka dambena ay wax bartaan ama gelinka dambe hore uu inuu shaqeysto ama gelinka dambe uu wax barto. Yacni gelinka uu heli karo. Waxaan u maleynayaa inaad wax badan ka faa'iidi doontaan muuqaalkan yacni sidaan uga hadalnay Malaysia. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.